عجاء أحمد بوح xuska sanad guurada 20ka bisha Gimbood oo ahayd maalintii qoomiyadaha iyo shucuubta ku nool dalka Itoobiya ay hanteen madax banaaneynta sinaanta cadaaladda iyo dimuqraadiyadda ayaa maanta si weyn looga xusay dalka Itoobiya gaar ahaan deegaanka Soomaalida Itoobiya xaflad si weyn loo soo hagaasimay isla markaana lagu maamuusay 20ka bisha Gimbood ayaa ka qabsoontay madasha shirarka ee Said Maxamed Cabdulla Xasan ee magaalada Jigjiga munaasabadan ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ku xigeenadiisa golaha kabineetka salaadiin dawladda bulshada qaybaheeda kala duwan iyo qurbajoog aad u fara badan oo ka soo qayb galay munaasabadan ayaa wajiyadooda waxa ka muuqday farxad iyo reereyn munaasabada loogu dalbaadagayo 20ka bisha Gimbood oo halku dhig looga dhigay waxa si dardar gali doona iyo qorshayaasha dib u curashada ee u yaala dalka Itoobiya ayaa waxa halkaasi laga soo jeediyay khudbado kala duwan ugu horeyna waxa halkaasi khudbad kooban ka soo jeediyay Garad Maxamuud Dool oo ku hadlayay magaca ugaasyada salaadiinta iyo deegaanka Soomaalida Itoobiya Gimbood haya oo maanta laga yaabaa xuskeediya intii maanta ay taagneed iyo intii ka warsan marka la barbardhigo hay'adaha haday tahay haday mudisto xaalay maarin tahay kullay wax isbarbardhig kaliya ma Gimbood waa maanta aynu helnay xuquuqda dastuuriga waa maanta aan madax banaanaanay inaynu afkeena hooliyo wax ku barano wax ku qorano suna maamulo madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo halkaasi ka soo jeediyay khudbad dheer oo ka waramaysa sooyaalkii taariikheed ee qoomiyadaha iyo shucuubta ku nool dalka Itoobiya ay u soo galeen xorriyadda sinaanta cadaaladda iyo dimuqraadiyadda iyo wada noolaanshaha ayaa cadeeyay in deegaanka Soomaalida Itoobiya laga bilaabo 2000 ilaa hadda uu ku socdo isla markaana deegaanka Soomaalida Itoobiya uu guul ka soo hooyay arrimaha nabadgelyada horumarka iyo maamulka suuban waxaana madaxweynaha hadaladiisa ka mid ahaa 20ka bisha Gimbood waa maalintii uu mira dhalay halgankii lagaga takhalusay kaligitariskii dalkeena isla markaana ay dalkeena ka codatay dimuqraadiyad ku salaysan sugidda dhammaan xuquuqaha asaasiga ee qoomiyadaha Itoobiya dalku waxay ahayd mid Itoobiya ka dhigaysay meel ay leedahay qoomiyad kaliya isla markaana laga hadlo luqad kaliya oo haysta diin kaliya wuxuuna cadaadis iyo cambulis aad u baan saaray xuquuqaha qoomiyadaha Itoobiya wuxuuna abuuray nidaam saldhig u ahaa siyaasadaas oo ahay in qoomiyadaha kale ee dalka lagu caayo dhaqankooda diintooda luqadooda ay leeyihiin taasna ay ahayd sababta ay qaar ka mid ah qoomiyadaha ku nool dalka ay dafraan qoomiyadda ay ka soo jeedaan sheegtaana mid ayna u dhalanin si ay uga badbaadaan dhibaatada uu ku hayay dalku xuskan sanad guurada 20ka bisha Gimbood oo si ballaaran looga xusay deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxa sidoo kale ka soo qayb galay qurbajoog aad u fara badan oo ka kala timid daafaha dunida oo ay u heeliyeen fanaaniin caan ah oo dalka iyo dibadda laga yaqaano munaasabadan 20ka Gimbood ayaa ku soo beegmaysa xilli deegaanka